saaxiib yaal ku soo dhawaada janaalka Garmaal. Haddii aad ku cusub tahay janaalka Garmaal, fadlan ka mid noqo saaxiibadeena. Warbixin ay maalgelisay qaramada midoobay ayaa muujinaysa in dalka Soomaaliya uu ka mid yahay 5 wadan ee ku yaala qaaradda Afrika, kuwaas oo dadka ku nool ay yihiin dadka ugu farxadda badan qaaradda Afrika. waxaa sidoo kale 5taasi wadan ka mid ah dalalka Algeria, Mauritius, Libya iyo dalka Morocco. baariyaasha diyaariyay warbixintan ayaa waxa ay soo darseen 155 dal, waxa ayna sheegeen in dadka ugu liita dhinaca farxadda ee ku nool qaaradda Afrika ay ku nool yihiin dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, waxaana ku xiga dalka Burundi iyo dalka Tanzania. wadamada kale ee ku jira liiska ee meesha hoose ka galay ayaa waxaa ka mid ah dalalka Rwanda, Togo, Guinea, Liberia iyo dalka South Africa. warbixinta waxaa kaloo lagu saleeyay su'aalo la weydiiyay in ka badan 1000 qof intii u dhaxaysay sanadihii 2014 iyo sanadkii 2016. waxaa tusaale loo soo qaatay jaranjaro ka kooban 10 tallaabo oo kadib dadka la weydiiyay halka ay la tahay in ay ka joogaan jaranjaradaasi marka la eego dhinaca farxadda iyo nolosha ay ku nool yihiin marka loo eego dalalka ay joogaan. qaybta warbixintaasi ee ka hadlaysay qaaradda Afrika ayaa waxaa la sheegay in 2 wadan oo kaliya ee ku yaala qaaradda Afrika ay sameeyeen horumar dhinaca farxadda 10kii sano ee la soo dhaafay. wadamadaasina waxa ay kala yihiin dalalka Sierra Leone iyo dalka Cameroon. warbixintu waxaa kaloo lagu muujiyay sawir ah in dadka Afrika ku nool badankooda yihiin kuwa muujinaya rajo wanaagsan inkastoo aanay ku faraxsanayn waxqabadka xukuumadahooda. waxay sidoo kale muujinaysaa baytiri warbixintu dulqaad iyo adkaysi xoog badan oo ka muuqda dadka ku nool dalalka qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa ugu farxadda badan. dalka Soomaaliya oo in ku dhow 30 sanadood ay ka jireen dagaalo sokeeye ayaa warbixintu waxa ay sheegaysaa inay ka soo kabanayso dagaaladaasi sokeeye, waxaana dadka ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ay yihiin dadka iyagu ka soo kabanaya dagaalada, kuwaas oo muujinaya farxad. laakiin qubarada aan la hadalnay waxa ay sheegayaan in ummadda Soomaaliyeed ay ka soo daaleen muddo 30 sanadood ah dagaalo sokeeye, qaraxyo, abaaro iyo waliba musiibooyin kale oo dabiici ah, ayaa haddana waxa ay dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa iyagu muujinaya adkaysi, dulqaad, farxad iyo waliba inay isku duuban yihiin. Soomaalida ayaa warbixintu waxa ay sheegaysaa in rajo wanaagsan ay muujinayaan iyo adkaysi, inkastoo ay la mid yihiin dalalka kale ee la wareystay, kuwaas oo xukuumadahooda aysan ku qanacsanayn. ummadda Soomaaliyeed ayaa wax soo saarkeeda aad u sareeyay waqtigii nabadda ay ahaan jirtay dalka Soomaaliya, oo ay isku duubnaayeen, waxa ayna soo saari jireen waxyaabo badan oo kala duwan oo loo dhoofin jiray dalalka Carabta iyo qaar ka mid ah dalalka qaaradda Yurub. waxaana dhaqaalihii xoog badnaa ee dalka Soomaaliya uu burburay mar qura markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen Soomaaliya sanadkii 1991. maanta dhaqaalaha dalka Soomaaliya waa uu burburay sababo la xiriira dagaaladii kala duwanaa ee na soo maray, balse dadka Soomaaliyeed weli kama aysan daalaadhicin nolosha, oo waxa ay muujinayaan adkaysi iyo inay yihiin dadka ugu farxadda badan qaaradda Afrika. dagaaladii aan dhamaadka lahayn iyo dowlad la'aantii na soo martay muddo dhowr iyo 20 sano ah ayaa ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka dhaxleen burbur, laakiin niyadda iyo waliba hal abuurka kama aysan dhiman, oo waxa ay hadda u horeeyaan dalalka qaaradda Afrika ee wax soo saarka, ganacsiga iyo farxadda isku darsaday. ganacsi iyo dhaqaale kuma socon karaan meel aan amni iyo xasilooni aanay ka jirin, laakiin iyadoo dhibkaasi uu jiro, Ilaahay mahadii Soomaalida ganacsigeeda waa uu sii socday heer kastaba ha jooge. waxaana Soomaalida qurbaha ku nool ay yihiin kuwa dhiirigelin aad u weyn u sameynaya dadka gudaha ku nool, halka kuwa gudaha ku nool ay muujinayaan adkaysi iyo waliba inay yihiin ummad isku duuban.